waqti walba oo aan xasuusto indhahaaga deeqsinimada jacayl ka muuqatay, wadnahaygu wuxuu ku sii milmaa jacayl aan kuu qabo. runtii ma joojin karo sida aan kaaga fikirayo. wadnahayga maalin walba jeex siduu u milmaayay wuu sii dhammaanayaa. markuu dhammaado, wadnahaada ayaan wadaagi doonaa, kuna wada noolaan doonaa ani iyo adiga. xabiibti, waxaan rajaynayaa adduunyada intaan ku noolahay in aan quud iyo cabitaanba ka dhigan doono isdarasiinta jacaylka baaxadda weyn leh ee inaga dhexayso. waxaad tahay ruuxii ugu horeeyey ee qalbigayga taabto. sunta aad ku buufisay qalbigayga dushiis waxay dishay dhammaan waxyaabaha xunxun sida nacayb, nabsi, xumaan. waxaadna ku beertay oo baraabiskaagii ku soo baxay jacayl dhab ah iyo ubaxyo guduud ah. waan ku jeclahay qalbi. waxaan ifka ugu jeclahay subax walba inaan laabtaada ka soo tooso, kadibna inta sujuudda iyo indhaha kaa shumiyo ku saaro garabkayga. ma doonayo adduunyadan intaan ku noolahay inaan ku waayo, ee marnaba ha ii oggolaanin inaan kala fogaano macaanto. noloshayda maalintan aqli yeeshay ilaa iyo hadda milyuumaad qofood ayaan soo arkay, laakiin inta bini'aadam ay indhahaygu qabanayeen waxaad ka noqotay ruux aan la dhacay noloshaydii hore oo idinna mar qura beddelay. wadnahaygiyaay, sideen kugu iloobi karaa xaqiiqdii mar haddiiba aad i kasbatay. hal jacayl, hal qalbi iyo hal qoys inaan wadaagno aad ayaan ugu faraxsanahay. waxaad tahay wadnahayga jeex ka mid ah. sidaa aaweed mar walba waxaan jeclahay inaan kuu barkiyo dhanka bidixda ee wadnaha, waana ku tabayaa sharafeey. labadii ruux ee diyaarad iskula safarto waxay ku qaadataa saacado ama maalmo inay is-ag fadhiyaan. labadii ruux ee dayax gacmeed ku wada safrana sannado ayay ku qaadan kartaa. labadeenna waxaan doonayaa inaan hal sariir ku wada safarno inta nolosha ka dhiman. waan ku jeclahay qalbi. waa anigoo ah walaalkiina Zaki Zama. haddii aad ka hesheen muuqaalkan, fadlan waxaan idinka codsanaynaa channelkeena Hilaac Studio Production inaad subscribe noo saartaan. wixii kaloo afkaartiina waxaad inoogu soo gudbin kartaan qaybta hoose ee kommentiga. waad mahadsantihiin. anagoo isku dugan waxaan idiin leenahay maalin wanaagsan dhammaan taageerayaasha ku xiran channelkeena.